نبت حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. tilmaamaa jira haddaad isku aragtid aad khatar ku sugantahay khafladii waa soo socotaay is ilaali maxaa ka mid ah khaflada calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah attakaasul can itaacaat haddaad aragto qofkoo ka xaaja haddaad naftaada aragto iyadoo marka cibaadada iyo daacada la soo qaadana ay caajis iyo wahsi iyo hamaansi bilaabayso marka sheekada iyo hadaltirada iyo tirorogta la wadana aad nashiid iyo qof firfircoonoo soo jeedo aaraa badan oo hadal fiican oo warramaya aad noqoto ogsanow xanuunku bilowgu kugu yihi waa wax ka mid ah acraadii sidaa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisu waxay tilmaamayaan wax arrinkan u eg مثلا قرآنك إلهي وحليه منافقة مركي اللي سفينه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلهي وحط الماما سبحانه وتعالى الصفة منافق لماذا قلبي يدكته قرن ما يسيادوه قفكم منافق بما مؤمن بوحى قلبي يسكجره لكن منافق لماذا مركي قلبي يدكته أعراض سمت مسك حمضة كم مقارن ساعات كو قياس ساعات رأي زكري وحق أسوسي جنجيرا وحويا بين هيلي لا يأتون الصلاة إلا وهم كسال صلاة ما يمدني وعاجسة وكل بتهي مويان هل كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة أيوة هيد مركي نبت قفصة ماشوا معي صدقة أرحنا بها يا بلال لها استعينوا بالصبر والصلاة إلهي القرآن كقلت المامي إذن هذا دركته adigoo jumca iyo jamaacaadka jarjaraya waa mushkilad waa calaamo ka mid ah calaamaadkaasi sadaradeed buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ku yaala duul ka tageen oo ka tageen yacni jumca ka tegistooda joojiyeen amase ilaahi subxaana wa tacaala la yakhtimanna allahu calaa quluubihim ilaahay baa qalbigooda dhababi doona kadibna waxay ka mid noqon doonaan buu nabigu yidhi kuwa qaafiliinta ah haddaad jimcaha ay ku dhaafdhaafo aad u jarto waxaad ku biiraysaa ahlu khaflaha haddaad aragto duul salaaddii jimco oo la aqimay amase la adimayo dukaanka weli sii iibiibinayo wada ogsoonow khafladii baa ku haleeshay calaamaadka khaflada lagu garto waxaa ka mid ah ay culimmadu yidhahdeen alistihaana bilmacaasi qofkoo agtiisa ay ku fududaato macsidu adhowaad iska toobadkeenaa macaynkan ee iska samey tan gabadhan iska salaan tan la sii hadal waxaan samey halkan ka bax waxoogaaga ribada iminka doorka ka dambaad ka toobadkeenaya iska wad hari ma jiraa dunuubtii waaweynayd iyo macaasidiiyo qofka la fududaada bini aadamkana ilaahay wuxuu ballan qaaday in la itixaami doono waxyaabaha calaamaadka ah waxaa ka mid ah qofka oo wakhtigiisu uu lumo biduuni faa'ida raasamaalka ugu weyne qofka bini aadamkii haystaa waa wakhtiga waayo cimriga la sheegaya waa imisa 60 baan jiray 50 baan jiray 70 baan jiray waxaad sheegaysaa waa saacadaha kan jaaniska aad nolosha ku haysataa waa saacadaha kan waa raasamaalka xaqiiqiga waa raasamaal saacad waliba markay tagto waxa kaloo dhan waa la soo celin karaa isaga lama soo celiyo saacaddii ku dhaaftay intaad ma soo laabayso wixii ugu weynaaye qofka bini aadamku uu haystay saxaabada waxaa la yidhahdaa waxay caan ku ahaayeen wakhtigooday kaga shaxiixsanaayeen dirhamka iyo diinaarka inagu yacni lacagtaynu bukhala ku nahy waktiga laakiin waad ogosha inaad iska sheekayso boodboodo waxa ka iska wado ama wax soo bix haddii lagu yidhaahdo aad bad gacanta u xijiraysa iyagoo xooluhu qiimaha weyn may samayna waktiga axad saalixiin baa waxa la yidhi mid baa wuxuu yidhi waxoogaa baan rabaa inaan kula sheekaystee sheekhi iyarasu wuxuu ku yidhi ordoo cadceedda jooji yani cadceeddu way igu socotaa time baa igu socda buu leeyahy dardasho war uma hayo weeyaan waktaa soconaya haddaad aragto qofka oo waktigiisu uu cidlo kaga lumayo
وحنونك كم باهية قفك آن لوينين وحيابه وإلهي كل وان له سبحانه وتعالى قفك آن قرآن قرادين إنني عباداتك كريم وحاصل ما يخوتي في العقيدة وأعراض أما السمتمس أما علامة غفلة الوقرت